اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شاركا وين الشيخ يقال لي وكعذر دارنا يا مرك كوبات يا خاف وعن كعب سنين نبوحين كريم مرك اللبات waxaan u malaynayaa dhalinyaradu inay odayadii u diideen meel ay fadhiistaan waayo waxaan arkayaa uun dad madax madow allah idinku anfaco kelmadda caawa odhan doonaa waa ahmiyatu tawxiid mudnaanta uu leeyahay tawxiidku waa shahaadateynki waa laa ilaaha ila allah محمد رسول الله أريجاسي ودين توردن وشعار الدين الحق دين تربطة شعار كذا ما استانتيد أبو حنا ذكرنا وسلوغن إسكوا حلا هذا شعارات كان لتاجو اللي قصوا قابيو معنا بلارن haddii in islaam la soo lahaa eray ku kooba eraygaasi weeyaan erayga ah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ay diintani ku koobantay hatta arkaanul iimaanka markaynu eegno aliimaanu billahi markaynu dhaahno waxa dambe oo dhan isaga loo idaafeynaya aliimaanu billah inta dambe waa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil liqaa'ihi aw bil yawmil aakhir wa bil qadari khayri كلها وإضافات إلهي له إضافين سبحانه وتعالى لكن أصلكم والرميت الله سبحانه وتعالى علماء دي هوري waxay oran jireen tawxiidka waxa la yiraahdaa العلم بالله والعمل لله إلهي aad garato oo aad aqoon u yeelato فاعلم أنه لا إله إلا الله الله aad garato سبحانه وتعالى iyo garashadaasi oo aad ku dhaqanto waxay sheegayso ilaahay dartii aad u samayso culimada badkood waxay oran jireen markay taariifinayaan tawxiidku waa laba oo waa tawxiid al-ma'rifa wal-ithbat iyo tawxiid al-qasd wal-talab waa tawxiidka macrifada ama garashada iyo sugitaanka Alle subhanahu wa ta'ala iyo tawxiidka acmaasha wixii adiga ka tagayeen inaad xagga Alle ula qasdido هذا لا تكتو علماء بدو حارك دونتان يقول إلى هذا التوحيد هو ثلاثة أقسام وتوحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وحاصر دمي وتقسيمات علمية وأن لسود ويو تقسيمات الأسمية هذا ترى هذا وامد يا هذا ترى والله يا هذا ترى وصدح معناه هل من بعد هذا الشيء وإلهي برشديسة يوحي عمل كاسو فلا يؤد إلهي سبحانه وتعالى كلجي هو جهده أما كلجي أطلقبته يعني والله بدأ قيبي وحويا وحي سجى كيمي أنا ترميسية وحي سكو شاقي قيبنا وحويا وحي أدق فعله كاتجية حاجة الله قبنا إن تكلجي ورتمادي ضي صلاة ضي صوت ضي زكاة ضي وردتي وعكستو أقبنا oo xagga Allah aad u sameynayso inaad kaliya la qasdido wixii xaqiisa ka yimin inaad sidooda u rumayso macnaha ballaadhan ilaahay wuxuu u doortay erayga ah laa ilaaha illa allah erayga macnihiisu waa ilaah xaq lagu caabudaa ilaahu waa macbuud waa cid la caabudo sanam ha noqdo ruux doona ha noqdo wax kasta la caabudaa waa ilaah إله حق لغو عابدا مجرى اللم وياني وكيرا يا إلهي قرآن كسوغو شرح ياليه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى هو الرب إلهي إليه كإلهي سكرنك تي هوديس وحاي نفتي سودانتو هوديس أما وحاي نفتي سودانتو كي إله كرنك تي quraanka waxa ilaahay ku tilmaamay rususha waxa lagu soo diray dhamaantood inuu eraygaay wixii ilaahay rasuul soo diray oo dhan nusuusta xadiidka ay ku sheegto 310
wixii nabi la soo diray oo dhan oo 120,000 axaadiista qaarkood ku tilmaamto wuxuu dhami ereygan un bay wadeen was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni arrahmani alihatan yu'badun wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wixii aan rasuul soo diray ama wixii dad hore weydii baa ilaahay leeyahay ma waxaanu yeelay cid kale oo la caabudo aan Allah ahayn ama wixii adiga rasuulka horreeyay waxaan u soo waxyoodo ku soo diray annahu la ilaha illa ana fa'budun hadaba ilaahay wuxuu u doortay ereyga la ilaha illa Allah lama oranin la rabba illa Allah la khaliqa illa Allah kuwaasiba waa sax soo maaha laakiin ilaahay wuxuu doortay cinwaanka diintani inuu noqdo maxay laa ilaaha ila allah oo waa maxay waa masalada inta badan bini aadamku muranka geliyo tawaa'iftan dambe yar ee soo baxday hadda mooyaane ilaahay iyo weynidiisa iyo kelinimadiisa iyo dunida inta badan muran kama jirin xataa ibliis oo aabbaha sharka ah quraanku wuxuu tilmaamayaa inuu rumaysan ilaahay inuu rabbi yahay ibliis laftiisa oo ilaahay waa ka ku tilmaamayaa inuu leeyahay fabi'izzatik ama khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ilaahay inuu khaaliqiyo rumaysan qaala rabbi fa'anzirni inuu rabbi yahay uu rumaysan qaala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard idan rabbi nimadii iyo casiisnimada ilaahay uu rumaysan yahay haddana waa gaal waayo cibaadadii buu ku shariik yeelay ilaahay markaasi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray ereyga ah laa ilaaha ila allah saa daraaddeed masalada ugu badan ee dunida muranku ka oli jiray waa tan wa ilaa caadin akhaahum huuda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره reer caad waxaan u soo diray baa ilaahay leeyay walaalkooda huuda waxaan ku yidhi ucbudu allaha maa lakum min ilaahin ghayru waxay ugu jawaabeen aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una war ma waxaad noola timi inaannu alle keligii caabudno keligii oo wixii kale cibaado ahaayoo dhan aanu ka tagna masaasaad la timi bay leeyihin intaasi waa intaynu wada garanaynay haddaba waxaynu leenahay tawxiidkaasi wuxuu ahmiyad iyo mudnaanta u yeeshay ee rasuul walba loogu soo diray ee dacwo kastoo ilaahay soo diraa iyada uga bilaabantay waa miftaaxa ama waa furaha qofka bini aadamka ah eraygaa qabso waa fure hadduu furmo waxa ka dambeeya ay fududyihin hadduu furmi waayana waxa ka dambeeya ay adagyihin maxaa rusushoo dhamme halkan uga bilaabeen may meelo kale ka bilaabaan dadku dhaqaal u baahnaa siyaasad buu u baahnaa mashaakil ijtimaaciyaa jiray mashaakilaadku way tiro badnaayeen bini aadamka haysta qur-aanka markaad akhrido ilaahay qur-aankiisa in badan wuxuu kaga warramayaa taariikhda bini aadamka weecadyada galee inxiraafaadka ah kuwa siyaasiyu qur-aanku ka warramaya kuwa dhaqaalu ka warramaya kuwo ijtimaaciyu ka warramaya kuwa akhlaaqiyadu ka warramaya waxaasoo dhib ah oo la saxayay rasuul kastoo lagu talagalay inuu saxaa waxa la yidhi waxaad ka bilowdaa tawxiidka darsigaygu caawa meesha ugu weynaanu socdaa waa meesha tan marka ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi nuux ka warramaya laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi faqaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru nebi nuux baanu soo diray baa ilaahay leeyahay tolkii loo soo diray waxaanu yidhi yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru ilaahay caabuda keligii cid kaloo la caabuda ma lihidin
في سورة الأعراف أما صور كلا القرآن كما كان أخرجه رسول كيوه الرئي هل كاسو قبل الرسول ولمن أساس الشيء نبي الله هود بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله الصالح بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله الشعيب بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل إلهي بوحلي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول ولي بهالكاس قبل نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأهل رسول شكيل وختمي السنة هالكاس قبل حديث إمام أحمد يبي هقبه ورينيان ربيعة بن عباد من بني الدين صحابي قاس ودل يرى وأن ولي إسلام أيه وحيلي وحن صار راعي أبهي وحن نمبور السوق الله إلى ذي المجاز عرفت السوقية إلى هانتر سقطت ما ضوح حقوق لقدته قبل يدا يفتهم ماذا يا قبائل كسقف أنا سوق صار نمبور دبت تروح عن ركيبولي ووقت الجاهلية بولي رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا لا يضدك كله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وارضضوا لا إله إلا الله لها تفلحوا وقولي سنسا والليباني ساني وضدك كسا أروريو ودبتنا نمبا دبس عدبويدي قرح بدن وإنها أشقرك يرى لحوله والله بضفيرdo timaha laba meelood ka guntaday carabtu waa tibandheeriye sidan dumarkeenu u guntadaan oo kale bay qaarkood u guntan jireen dafiiratan laba dacal ka guntaday ayaa daba socda oo wuxuu leeyahay innahu sabiun kadib waa beenaale diintiisa ka tagay waa bidcoole ha dhageysanina buu ka dabaleeyay buu yiri waa adeerkii nabi maxamed كورن هدي أديرك أنت لو قد بدي قام ماشي تستكتبه ويده هذا وبنتي كيرانا وأديره وحبك بيجرا وحشيني نبي محمد أديرك بعد ما صعده دبتنا ماشي ويستاجه والدين كشيء قبا أديرك بقى وحليه إنه صابئ كاذب و دينتي سمت كتجي وبيدعولا نقضي وكاذبة بين على أبهي بن ويدي بولي سحابي غيره وحقولي أبا نينك دبا صعدا واقوبة وحيقولي وأديرك يا أبو لهب وأديرك يا أيا أكد دبا صعدا حديث الشيخ الألباني صحيح بكت المامية وحلنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل كاسو كبل هذا إسلام مركاسي عدي ودري الصحابة دي سياهد يوم لها كلا ودري وحكوا يد هلكا كبلابا هلكا مثلا حديث الصحيح بيا الله معاذ بن جبل صحابي اللي ورن شريبا وحكم ده الرجل يمن ودري النبي عليه الصلاة والسلام وحوش جاي ماشى وتجي يمن وكتجي معاذ بدك الدجانين يا أهل كتابه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ده أهل كتاب ده تجي سابوي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وويت توحيدك لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاوية هل كبلوا مكيدي هديك أقبلان صلاة الشيخ هديك أقبلان يعني مركز النبي قوة المامي وحكى لو قبلها وحن لنا مركز توحيدك وهلك الله قبل بالدين توحيدك بالشك استاء انحرافته او وعته او قلوع قاله قلوع ميشو دونها كقلو اريغا وفيرسو قلوع ميشو دونها كقلو وهلك الله قبل هذا سؤال اسويدين تلا waxay tahay dadkaas rusushu u timi ma isku wada problem bay haayeen waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan weliba dhalinyarada waxoogaa dhigatay dadka kan mushkilad ijtimaaciya haysata mushkilad siyaasiya haysata mushkilad dhaqaalaha haysata wadaadaduna wuxuu bay leeyihiin
tawxiidka halla saxaya laa ilaaha illa allah iyo meelahaas ma ka waramaysa war dadka dhibtooda wax ka xalila waxaan leenahay waa wax ma garato inkastoo buugaag badan oo ingiriisi akhriyay waa wax ma garato xaguu wax ma garakata ka yahay wuxuu ka moogan yahay taariikhda bini aadamka dunidu soo martay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan qur'aana wuxuu ku tilmaamayaa taariikh kooban concise kooban oo ku saabsan inxiraafaadka bulshooyinkii qalloocday quraanku bulshooyinka uu ka warramayo qaar baa siyaasad ahaan u qalloocday fircawn dee nin intuu dadka xaaqa haddana le maxay anaa ah rabbukum ulacla ka warran dictatorkaasi halku gaadhay intuu dad u khudbadeeyo ayuu wuxuu bulshaweynta ku leeyahay ana rabbukum ulacla bulshaweynta ka kaalay xaashiyada iyo malaa waxa la yidhahdaa qoladan dee dowladda ninka haysta la haysata wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan ka agdhadhow ayuu la hadlay wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri dadkii laysla soo dhaaf mala'u wuxuu ku leeyahay ilaahaan aniga ahayn idin garan maayo bulshadaas dad ka midaba wuxuu ku xukumay inaanay wiil dhalin waxay rag dhalaan in la laayo haddana rasuul baa loo soo diray tawxiidka saxaya quraanku wuxuu ka warramayaa kuwa sana macaabuday nabiyullaahi nuux baa loo soo diray tawxiid saxaya quraanku wuxuu ka warramayaa kuwa dhaqaalaha khiyaamo sameeyay oo tijaarada qalday oo waxa ka sameeyay oo awful kayla wal miizana wala tabkhasu an-naasa ashyaa'ahum kuwaasaa loo soo diray nebi shucayb laakiin wuxuu ka bilaabay ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru markaan taariikhda qur-aanka aragno kuwaa la soo diray akhlaaqiyaadkoodu ay dhinteen nebi luut kuwii loo soo diray xaggee mashkiladdu ka jirtaa markaa aan eegna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed waxaa loo soo diray iyadoo dunidu laba dowladooda waaweyni ka jiraan carab dhulkeedii inta ugu fiican gacmaha gumaysiga uu ku jiro bilaad raafidayn webigan dajle iyo meeshan uu maro iyo furaad iyo ciraaq dhulka kan dee madaa'in waa baqdaad agteeda bershiya haysatay waa dhulkii barwaaqada ahaa ee carab lahayd shaam waa dhulka loo barwaaqo ah romaniska haystay koonfurta yaman iyo qaybta tan koonfureed iyana dhul barwaaqo ah bay lahaan jirtay iyagana labadaa dowladood ee waaweyn baa ku kala loolamayay oo marna xabashida oo dee dowlad masiixiyo ku xidhan dowladda weyne masiixigaa baa qabsanaysa abraha iyo gruubkiisii marna kuwa beershiyankaa qabsanayay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay dee baadaan iyo kuwaasaa joogay beershiyaa markaa haysatay idan carab dhulkeedii fiicnaa wax haystay tacbiirka cusub haddaynu isticmaalno dad gumaysiya waxaa kaloo jiray cadaalad xumo khaliij alcarab ama jaziira alcarabiya waxay ahayd meel nin waliba warankiisa wax u dhacsado daciifaan waxba lahayn dumar waxba lahayn cid waliba dagaalku joogta yahay waxay ahayd meel noloshu cidhiidhitay lama odhanin ka bilow qadiyadda cadaaladda ee cadaalad ijtimaaciya baan u jeedaa lama odhanin ka bilow maxay qadaayaadka qoominimada iyo dadkan in la xoreeyo lama odhanin ilaahay waxaasoo problemoo jira buu wuxuu yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyat tawxiid waxay leenahay marka ilaahay qur-aanka markuu nicmooyinku ina siiyey sheeganayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyin aada u tiro badan buu ina siiyey weedha ay qolada gaaleed nin saynisyahan leeyaan in badan tilmaama wuxuu ka warramayaa blue planetka waxay ku tilmaamaan dhulka marka kownka intiisa kale aynu naqaano loo eego inta aynu naqaano marka la eego waa meesha qura ee nololi ka suurtagaltay bal ee nolol bini aadam u cuntanta ay ka suurtagaltay dabeetana nin astrophysics oo qoraya nicmada dhulkan taaliya sida bini aadamka loogu habeeyey ayaa wuxuu yidhi waxaad moodaa buu yidhi dhulku inuu yahay tailor made for man dharka haddaad dukaanka ka soo iibsato
waxa laga yaabaa gacanta intuu kaa leegyahay inuu sida karaasito kale luqunta kaagaba yaraado waxa suurtagal ah inuu dhexda kaa leegyo xagga hoose kaaga dheeraado laakiin marka aad tolotee dawaar walow tagto dee meel kastoo adiga ka mid ah la fuurinaya dabeetana marajam kugu abaa lagu tolaya wuxuu leeyahay dhulku iyo sida uu samaysan yahay kownkan oo dhami waa tailor made for man buu leeyahay waxaad moodaa in bini aadamka loo tolay taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin kownka aynu naqaano isbeddel yaroo kastoo ku dhaca xidigaha ka dhaco atmosfeerka ha ka dhaco dhulka ha ka dhaco isbeddel kasta oo ku dhaca wuxuu khatar ku yahay nolosha bini aadamka bay leeyihin sidan ay tahay hadda ayay ugu qurux badantay inay ahaato ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka suurad buu kaga warramayaa culamada badhay u bixiyeen suuratu nicam waa suuratu naxal suuradda la yidhaahdo suuradda ilaahay wuxuu isdaba taxayaa waxa nimco layna siiyey bini aadamka inuu ilaahay abuuray nudfa mahiina in laga abuuray dabeetana walancaama khalaqaha lakum baa laga sii bilaabaya nicmoolayda fardoolayda dhulka waxa laynoo sameeyey markaasa haddana ilaahay wuxuu ka warramaya cirkan iyo dhulkan iyo nujuumtan iyo xidigahan iyo kawaakibtan wasakharnaa baa ilaahay tilmaamaya saa laynoogu taskhiiriyey inta ilaahay wada buu marka dambe waxaa la odhanayaa waxaa ilaahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha baa ilaahay tilmaamaya ilaahay nimcooyinkiisa haddaad tirisaan maba koobi karaysaan baa ilaahay tilmaamaya ilaahay waxaasoo nimcaha markuu sheeganayo nicmada ugu hor sheeganayo suuradda waa maxay waa nicmatu tawxiid waxaasoo nimcaha markii la tirinayay aayadda koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ata amrullahi marka lasoo tilmaamo yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiru annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun baa ilahay leey an andiru annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun ilaahay wuxuu ka bilaabayaa nicmada in ilaahay malaa'ig soo dejiyey waxyi uu soo dhiibay ilaahay amarkii ay ku soo degeen rususha ay u yimaadeen maxay wadaan an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun kalimatu tawxiid waxay culammadu yidhahdaan markaa waa akbar nicma deeq alla bixiye waa ta weyn bay yidhaahdeen deeqdii ugu weynayd ee ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka siiyey saa daraaddeed buu sufyaan ibnu cuyayna وأحد حفاظ الحديث نكمده أما هو شيخ الإمام الشافعي إمام الشافعي علماء سنين كمده أيا وحليه ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله نعمة كوين إلهي أدور مصين إن أو بري نعمة لا إله إلا الله إلا بري فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إذن أيها الأحبة كلمة التوحيد وشهادة الحق أما الدعوة الحق وأبراء من الشرك قال لماذا لك فقاده إلهي وحط المامين أيتي أرى قاد رادد بوحى خلقك الله أبوري ابن رسوش الله صادري كتبت الله سودتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحلاني مسألة تاني وحق هدو الصقمه حقوق ذكرنا ما يسقمس ما لهم مركز يجونا سيبا عصر قدام به هيومانيسم كواحد لا ينادى وصوت ربطي وحمقشان يدو ضدك يكور رميان حقوق الضمركه xuquuqda caruurta xuquuqda hooyooyinka xuquuqda xoolaha xuquuqda environmentka soo waxaasoo xaqa ma maqashaan iyo hay-ada ka warramaya ka ma maqashay weli cid ka warramaysa xaqa ilaahay xaqa ilaahay waxaa ka warrama ambiyada iyo rususha waa wixii loo soo diray inay ka warramaan xuquuqdan kale bini aadamku uu ka warrama waxay ku dhisantahay cala almughaalaba in la kala xoog bato مثلا حقوق الضمرك waxaan oran karaa hadda xaqa dumarka ee European uu ka batay xaqa ninka imka hadii nin iyo gabadh shaqo wada dalbadaan oo qualificationska isku mid noqdaan gabadhnimada xaq badan iyada inay gabadh tahay bay kaaga weynaysaa xuquuqda rag iyo dumarku مثلا
kolba qoladii xoog badata qolada kale hadday dumarku xoog bataan ayana kama kacaan markooda waa lagdaan idan waa muqaalaba waa hirdam nololeed bay ku dhisantay xuquuqaha kaloo dhammi waa nooca ilaahay xaqiisu hadduu sugmo xuquuqda kaloo dhammi automatic bay u sugantaa qofka ilaahay xaqiisa qiraa wuxuu gartaaye ka dambeeya xuquuqda dambe oo dhan ilaahay baa qiraya ilaahay baa kuu sheegaya environmentku xaqu kugu leeyahay xooluhu xaqay kugu leeyihiin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha baa ilaahay leeyahy war dhulkaa fasaahadinina ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذي نكلير تهيا هذي تصحير تهيا واحد دون طبعا نقطه وبما كسبت أيدي الناس هذه حق دمر لقى ورمية إلهي بك ورمية هذه حق عرهورات لقى ورمية إلهي بك ورمية سورة اللقمان هذه إذا حقوق ذكرنا بوحي سقمتا مرك حق كوات سقمه ولذلك بقى أنبياء وحي هو الرئيسيسا حق كوات معاذ بن جبل أيوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام معاذ إن اللي يرابها سيدي سبب معاذ إنك استوى صحابة الرقوا علم بدن وكمدها بل حديث قاركود يكون الماميا فقيه إني أعلم المسلمين بالحلال والحرام هذا نوح كل انت دوري سود الجربة نبي قداشين تصيرنا ولا دوري سود الجربة كل انت والرقي يقول دوري تمنشر رضا إسلامي مكمدها لنقوم في علم وهدينين isagoo nin dhalinyaro ah ayuu nabi maxamed soo raacay oo dameer saaran nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dameer fuushan dameer yaro cufayr la yidhaahdo isna xagga dama ka soo fuulay dabeetana nabiga iyo mucaad oo dameerka wada saaran buu nabigu wuxuu yidhi waar mucaadow yaa mucaad buu yidhi mucaadow dabeetana saxaabigu wuxuu yidhi labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiiba oo ka aqbalay ilaahay rasuulkiisiiyo waxba nabigu uma sheegin waa iska socday saacad markay socdeen buu haddana yidhi yaa mucaad sidiisi lagu saxaabi ugu jawaabay nabigu waxba uma sheegin waa la iska socday saacad haddana markii la socday buu nabigu u yahay waxay culamadu yidhaahdaan min culamaa'i tarbiya waa ariiqo qofka loo tambiihiyo si uu wada dhega u noqdo wartalow nabigu waxaanu sheegayaa waa maxay si uu yiraahdo si ay arintu u dareemo inay tahay wuxuu nabigu sheegi doonaa wax weyn oo loo baahan yahay inuu markasta xasuusnaado nabigu muxuu ku yiri atadri ma xaqqullahi ala al-ibad mucaad ma taqaana ilaahay xaq waa doomihiisa ku leeyahay xuquuqda alle ma taqaana buu weydiinayaa nabigu mucaad ilaahay xaqiisa ma taqaana saxaabadu inta badan waxay garanayaan iyo waxaanay garanaynba waxay rabi jireen nabigu cilmi inuu kordhiyo dabeetana waxay ku jawaabi jireen Allahu a'lam wa rasuul ilaahi rasuulkiisa og nabigu alayhi salatu wasalaam markaas wuxuu ku yiri xaqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ilaahi xaqu adoomaha ku leeyahay waa inay kaligii caabudaan oo aanay maxay cidna ugu shiriik yeelin hadaba ayuha al-ahibba waxaan leenahay kelimada tawxiidku maaha eray afka laga yiraahdo qura waxa weeyaan waa eray nolosha adduunyo iyo nolosha aakhiraba ku xidhantay hadday si dhaba loo qaato oo waxa ay sheegayso diinta ay sloganka u tahay lagu dhaqmo nolosha adduunyo waa la guuleysanayaa haddii si dhaba loo yiraahdana nolosha aakhirana waa la guuleysanayaa inta badan dadku u yaqaanaa nolosha aakhiro in la guuleysanayo quraankana de waxa ku taala jannada ma in laga xaraam yeelay maxay idii ilaahay u shariig yeeshay inay xaraan ka tahay inay janno galaan hal xadiis baynu taakhiro oo dhanka tilmaamayna oo nimba la keenaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana 9 sijilligu waa files 9 diiwaan oo mid waliba madul basari inta ay ka aragtay kala jeedan ayaa la soo dhigaya oo dunuub galaya kan ma gashay waxaba uu qaranaya markaas miisaanka loo saaray waxa la wax xasan oo ka maqan miyaad garanaysaa ilaahay rasuulkiisa iyo maybulay xadiiska saxiix wuxuu sheegay bataaqa card baa la keenaya ay ku qorantay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah card tawxiidka la ilaha illa allah ya la keenaya
kaadhkaasaa la saaraya dabeetana kaadhkaasaa ka xoog badanaya sijillaadkii oo dhan buu nebigu tilmaamay tawxiidkii ninka kan tawxiidku aakhira waa nooca laakiin midna ogsoonow tawxiidadu isku mid maaha sida loo dhawaaqo iyo sida loogu rumaysan yahay iyo sida loogu dhaqmo isku meel kama joogno waayo axaadiistu waxay tilmaamaysaa dad tawxiidkoodu naarba inuu galo uu ka joojiyey oo kow janno horta ka gelaya waxaa kaloo axaadiistu tilmaamaysaa qad tawxiidkoodu khafiifu ku jiro oo dunuubtooda kale intay badatay uu la kici kari waayey dabeetana naarta intay galaan lagu soo nadiifinayo aakhirka marka dambe janno soo gelaya marka waxaan leenahay tawxiidku hadduu si dhaba u jiro marka koowaad buu naarta kaa mamnuucaya haddii khalal ku yara jirana fudayd hadduu ku jirana naarta inaad ku waartaabuu kaa mamnuucaya idan markaa waxaan leenahay haddaad tawxiid ku dhimato waxa la hubaa inaad janno gelayso ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal haddaad tawxiid ku dhimatana waxa la hubaa inaad naar ka baxayso ama marka horeba ha gelin ama marka dambe ha lagaa soo saaray aakhiro tawxiidku qiimaha intaa leeg buu ku leeyahay adduunkana waxaan leenahay qiimuu ku leeyahay qiimayawa kaloo dhan caawa ka hadli maaya hal midaan tilmaamayaa qura waxaan tilmaamayaa isbeddelka nololeed waayo innagu waxaynu nahay ummad dhibi haysato wadankeenna aynu deganay ama caalamulislaami oo dhan caalamulislaami maanta bini aadamka xagga dambu kaga jira waa wadanadooda inta dagaalku ka socdo bale lagaba yaabo dagaal tawxiidi inuu ka socdo waa wadanadooda inta dibudhacu ka socdo waa wadanadooda inta dulmigu ka jiro waa u badan yihiin dunida kalena waxba ka jira waa wadanadooda inta ugu badanee bini aadam ba lagu dilaa waqtigaan aynu hadda joogno mashaakil aad u tiro badan baa yaalla caalamulislaami oo dhan waa haddana way tawxiidsanayaane maxaa kasi ah waa kii aan naarta wada badbaadinayn buu u egiyay majmuucu tawxiidkeedu ama hadduu sax noqdo waxaan leenahay waa ariiqa lagu saxee ambiyadii hore oo dham ay ku saxday laakiin dadku inta badan tusaaluhu wax ku fahmaa haddaba aan saddex tusaale bixiyo mashaakilka caalamka ka jira ee iminka jooga ka kaale waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo kuwii mashaakilkaa saxay nebiyey ahaayeen ama kan bay ahayn bal aan isla aragno cahdigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku salliga nebiga mashaakil jiray si uu u saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi iyo qarniga labaatanaad nafsi lmashkila oo la isku daya in la saxo labadaasaynu tijaabinaynaa cahdigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carabi waxaynu odhan karnaa waxa malaa mashaakil dunida ka jiroo dhimi waa ka jireen siiba jaziira alcarabiya dil iyo dhac iyo sakhrad khamro maalan khamro soo qaadno khamradu waxay ka mid ahayd carabtu dee si hayru caadiyay u cabbi jireen kaljarka dhaqanka ku biirtay dhaqanka waxaad ka garanaysaa gabay carbeed oo gabayadii hore jaahiliyada ah inta badan inaanu jirin baa laga yaabaa ilaa iyo gabayga waxaa lagu furfurtaa af carabigaa saddex shay khamriga cabistiisa iyo dumarka la tumashadooda iyo faraska fuulistiisa saddexdaase haddaad akhrido gabayadii jaahiliyada carbeed mucallaqaadka iyo kuwa kan markaad akhrido saddexdaa shay waa iftitaaxyada gabayga carbeed wuxuu ahaa khamrigu si caadiya carabi waxay ka dhanto ay u cabto culamada badh baa waxay yidhaahdaan erayga taajir haddaad maqasho wuxuu ahaan jiray ninka ka baac mushtareeya un khamriga taajir kaloo la lacagi ma jirin ninkaa kaa iyo ribadaa ugu badnaan jiray marka khamriga si caadiya loo cabi jiray qur-aankii koowaad ee soo degaa ma odhanin war khamriga iska daaya lagama hadal waxa laga hadlun tawxiidka sanamka caabudistiisa in la joojiyo aakhira inay jirto janno inay jirto naari inay jirto ilaahay keligii in la rumeeyo rususha la raaco baabkaasaa laga hadlayay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa baabtaas ugu bilaaba
khamrigana waa la cabayay yaa cabayay saxaabada cabaysay aayadii koowaad ee qur-aan soo degta maxaa la tilmaamay suuradan tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana baa la tilmaamay waxaa la kala saaray risqa wanaagsan iyo canabka baa la yidhi waxaa ka dhigataan midhaha waxaa ka samaysataan baa la yidhi ku lagu sakhraamo iyo risiq fiican inaanu risiqa fiican ku jirin baa la tilmaamay laakiin lama odhanay waa mamnuuc haddana waxaa soo degay qur-aan la leeyahay wa ismuhumaa akbaru min nafcihima khamriga iyo maysarka iyo qamaarka dembigooda iyo ismigooda wuxuu ka badan yahay waxtarka ku jira haddana waxaa soo degay qur-aan xadidaya wakhtiga la cabayo laa taqrabu salaata وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون خمردها عبنا بالليدي سلادها تكررين إيدكم محي صخرة سوحي نقطي خمر جاي لعبوا ده مركا هبين كي مركا عشاء تكذب حكا ضبية سيساكا أرورتا ذوك عضاد جو ميرابي أو كلام ميرميات سلاده وتكنكرته إلا سلادي كانوا يسكون الدو ينادى عبتوا هذا ولي خمر جوا بناي سيدا اللي عبيه أن تصالي دكسي علي بن أبي طالب أيوه الربيين قرصدين النبي محمد فاطمة نبي عليه الصلاة والسلام إن أنت فاطمة هي الربيين قرصدين لكن ولا سوي الجرود الدون لما هيستمر كه لكن إنه أرسطنا ودونية حولنا ما هيستو دقال كي بدر ما دعي دقال كي بدر غنيمة دي لها لي أيو نيف جالها دبتنا وحيسي نيف كجاله هذا راسك كل جت يدوم على أنت هتغشت لكن واحد كلام ما هيستو نك الله إسرائيل ده بده يبحثون إن يسكت صحابة حابستان حابة يوحى إدخرية أنت وحى صو قرآن إن يسوق كي يبيع نود بتنا وحوجا وصاب بحك عليه وقع راس نكته وحي مركو صاب قرطي أيو يبي أنت وكم قناة وحى أي صحابة خمر عبتي خمر جيل عبي ماشي الرجع عبيه فرديه وحكى بده حمزه نبي محمد هذيركي حمزه صخرامي iyadoo meesha la sakhraansan yahay ay habla heeseen dabeetana waxay ku heeseen kuruskiya beerka ma ay sukaaya saartaan حمزه sakhraansan ba kacay dabeetana hashi cali halka joogta buu birta mariyay ablihi ba kuruskiya beerka la soo saaray waxaa yimi cali ibn abi aalib war hashaydii maxaa ku dhacay waxaa la yidhi adeerkaabaa birta bariyey nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo balkaalay ninkii xamsaha wuxuu hashaydii ku sameeyey waa la isa soo raaco hashii baa la arkay siday u eg tahay dabeetana waa la dhaafay meeshii ay bahalka ku cabayeen bay tageen iyagoo sakhraansan markay meeshii u soo galeen xamse cagahoodu eega dabeetana ishu kor u raaciyeen la madaxooda waa cali iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyatiin addoomihii aabbahay mooyaane ma wax kala ahaydeen waa nin sakhraansan oo iskaga tageen sidaasaa loo cabayay khamriga iyadoo sidaasaa waxaa soo degay qur'aan le maxay إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لا سوى إله إلا يمحي فاجتنبوه كدير هذا بالي ووقت ما وشن يطبن سندوت كذب شن يطبن سندوت بالتوحيد كنا شوقي خمرنا محي فصحي ولا عبية شن يطبن سندوت كذب بواحد سودكتي خمر قوى ممنوع محي كدير هذا حي سمية صحابتي مركا وحي هذان حديث تبركوض وحي لي صحابة وحي أرجو وش الشوبية وبيجا جاي عنده كوهستان أيام نوقو يار لا هي خمرة وحسود دقي قرآن لا محي خمرة قوى ممنوع ويقبين ولا ولا صيد وحي قرية يا لو نبال الدادي magaaladii madiina togo khabriya furmay baa la yiraahdaa magaaladii oo dhanba khabrigu dareeray rag baa u yimi nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaa qadiyadani waxay ahayd
nusuusta ha ka soo waranto laakiin wali si shacbiya loo isticmaalay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiyo baanka dee waa laga baac mushtariinay xoolo agoomeed baa ku jira aanu cadaynay baa la yidhi ila waa agoon iyo xoolaheed waad garanaysaa nabigu wuxuu ku yidhi quba ma waa kuwii agoonta quba buu nabigu yidhi dabeetana waa la quba qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo dee anagu dawooyinkaanu walaaqnaa waxoogaa dawooyinaanu samaynaa marka haddee dawooyinka qaar baan looga maarmino waxoogaa baanu ku darnaa ee intaa noo fasax isagaaba xanuuna buu nabigu yidhi isagaa daa ah ee dawo maaha qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo anagu dhul qaboobaa baanu degannahayo dee shaqada lama qaban kare waa isku yaro diirinaa waa ku yaro dhufannaa si aanu u kulayshanno isaga jooji wax sababoo kastoo ay sheegaan wuu diiday nebigu masalada khamriga wax kasta oo la sheego wuu diiday bale wuxuu tilmaamay 10 baa malcuunina buu yidhi ka walaaqa ka qaada ka sida ka iibiya ka caba ka qayb wuxuu dhami waa malcuun buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khamradii way istaagtay hadda askar lama dirin oo guryaha lama baadhin oo boolis meelaha lama dhigin magaalada in khamri soo galiyeen aan soo galin mujarrad waxa soo dagay maxay khamrigu waa xun yahay ka dheeraada baa soo degtay dabeetana waa laga dheeraado idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bulshada dhibtii haysatay wuxuu ka bilaabay khamra jirtay zina jirtay boob baa jiray dhac baa jiray kan baa jiray halkaa lagama bilaabin waxa laga bilaabay war ilaahay rumeeyo cibaadaysto rabbi ku xidhma baa laga bilaabay markay dadku qumanaadeenna waxa loo sheegay ahkaamtii sharciga ahayd kaana daaya kaana joojiya kaa yeela dabeetana noloshii mustaqiim bay noqotay nabigu shurta iyo booliis iyo maxkamado dadka soo xidhxidha uma samaynin noloshii saasay ku hagaagtay yacni mushkila ijtimaaciya ayuu nabigu xallilay oo ah ka mida mashaakilka bini aadamka ugu adag aan qarniga 20aad nimaadna haddaba waddanka dunida ugu dhaqaalaha badan ee ugu cilmi badan cilmiga adduunyo ee ugu xoog badan ayaa go'aansaday inuu khamriga joojiyo waa waddanka Mareykan waddanka Mareykan culimadiisii sayniska waxay u arkeen khamrigu inuu poison yahay dabeetana waxa la yidhi khamriga hala joojiyo saynis yahanadoodii aqoon-yahankoodii wuxoodii oo dhan baa isku raacay waxa la yidhi maxaynu ka yeelnaa waxa la yidhi dadweynaha aftiha laga qaado kongresska labadiisa golayaasha guurtiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo kongreska labadaba hala mariyo madaxweyne kongreska saxeexay afti dadweynaha la qaado dadweynihii Mareykan wuxuu u batay khamrigu waa poison ahna laga joojiyo waa aqbaleen kongreska uu footeeyay waa aqbalay senatorska la geeyay waa u footeeyay waa aqbaleen dabeetana waxa la yidhi qadiyada tani waa inay noqotaa mas'alo constitutionka lagu daro federal government qaanuun soo saaro Mareykanku fatheriska ama qolada u yaqaaneen aabayaashii kawinay waddankan ay isu geeyay ayaa u dhigay distorka Mareykan markaa inta badan wax isbedbedela laguma sameeyo wax yar oo isbedelaaba ku dhaca waga waxay qaateen amendmentkii 18aad wax ka bedelkii 18aad baa la sameeyay dabeetana waxa laga dhigay qadiyad historia oo states ko dhami ay ku wada qasban yihiin inay fuliyaan stateku markaa xaq uma laha inuu ka hadlo golayaasha governorska iyo qoladaas waa federal loogu ku jira waa constitutional waa dasturi ummadda Mareykan way isku raacday waxay yiraahdeen 1 year chance ana waliba dadka hala siiyo waa 1919 kii marka qaanuunku soo baxay waxa la yidhi qaanuunku wuxuu hirgeli doonaa January 1920 ayuu qaanuunku hirgeli doonaa intaasi ninkii warshad lahaa warshadiisa wax kale ha u sii bedesho ninkii lacag kaga jirta kala soo baxo ha laga sii tabaabshaysto January 1920 markay gaadhay baa qaanuunkii la dabaqay waddanka Mareykan waxa la yidhi si dadku bahalkan xumaantiisa loo tuso ha lagu daro waxbarashada laga bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad curriculumka waxbarashada lagu daray khamriga iyo xumihiisa iyo dhibaatooyinkiisa in la dhigo
inanku markaa dugsi hoose markuu ku jiro waa loo dhigayaa dugsi dhexe dugsi sare ilaa jaamacad buu dhiganayaa khamriga iyo dhibtiisa dowladda Mareykan xooggeedii cilmigeedii aqoonteedii technology-geedii wixii oo dhan waxa la geliyay jaraa'idku inay ka warramaan aqoon-yahanadu ka warramaan qaanuun-yahanadu ka warramaan ee qolo kasta bulshada in la wacyi geliyo in khamriga la joojiyo 1920 buu sharcigu markaa hirgalay maxaa isbedelay dadkii khamrigii bay deyn waayeen balwadii waa sii socotay xadhigaa bilaabmay waa sii socotay waxaa bilaabmay meelo la yidhaahdo blind pigs alkhanasiir alcamyaa waa meelo suuq madoob oo lagu sameeyo khamrada waxaa bilaabmay awal khamradii hore dee waaba la eegi jiro nooc gaara bay ahaydeen xataa tii khashabka ethyl iyo methylka labaduba inay soo baxaan dadkii wax indhabeela wax waasha wax ku dhinta wax sumooba wuxuuba way soo baxanayeen lawa khamro wax waliba ku jiraan waa socotay dowladdu xabsigay bilowday nus milyuun dadaa la xidho 500,000 people ayaa xabsiyada loo tallaabiyey ijraamaadkii dhacay Mareykan oo maxkamadii inay dil qofka binaadamka ku xidhaa yar tahay 200 qof baa la dilay oo ijraamka khamriga iyo wixii ku saabsan loo dilay 200 qof ay maxkamadda Mareykan dil ku qaadeen oo la laayay waa la waday laakiin dhowr iyo 10 sano kadib ee dawladda Mareykan dib u shirtay waxa la yidhi socon waa mamnuucistiya maxaynu sameynaa khamriga ma cilmi cusub baa ka soo baxo ammaan sheegaya maya khamrigu waa khamrigi sidii buu poison u yihi aqoon-yahanadu waxay leeyihiin aqoontu way sii korodhay tilmaamaysa xumaha khamriga ee may soo naaqusmin laakiin 1933 ayaa dib loo qaatay go'aankii wax laga bedelo oo maxay la sameeyo waxa la yidhi mamnuucistii way fashishay mushkiladii aynu rabnay inaynu daweynaana way ka sii badatay xalku waa maxay aan iska ogolaana bay yidhaahdeen dabeetana dowladdii Mareykan ee sare federal governmentkii waxay qaadatay dadka badh inuu weli mamnuuc ka yahay haddii khamrigu cabay intaasoo miligram uu dhiiggiisu gaadhayo khamrada laga helaa darawallada iyo kanadoo sakhraasan gaadhi marka xigta dhowr xaboo caynkaasaa federalku la hadhay intii kalena stateska waxa la yidhi idinku go'aanka gaadha state walba adigu waxaad aragto ka yeel ama qadiyadii distoriga ahayd ee amendmentka lagu sameeyey waxay noqotay inay fashishay 1933 wixii ka dambeeyay khamrigii dib loo fasaxay dhowr iyo 10 sanadood su'aashan idin weydiinaya waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 10 sano ku joojiyay khamri dhowr iyo 10 sano gudahood ayuu bulsho khamriye caba waan aqoon maadiya lahayn waan jaamacada u furay waan dhaqaale haysanin oo tijaarinaysay oo aqoonta meesha taala marka la eego khamriga u arkay inuu caafimaadka wax ka taro u arkay inuu qabowga wax ka taro u arkayay geesinimo inuu keeno u arkayay gabayadood iyo waxooda inuu ku jiro mentality-gii yaalay uu nooca yahay ayuu daweeyay dabeetana bulshadaas mar qura ka baxday khamri cabki waan ku guuleystay طريق مرينا ومحي ما هم ممنوعست كما هرينا وحكو هريه محي وحكا بدل كمانك يا عقلك قفك بني ادم كا iyo maxay qalbigiisa iyo wuxuu rumaysay mamnuuc dhabta ah waa wuxuu qofku naftiisa ka mamnuuco mamnuuc ma qaanuunka waxaad iska eegto ay yiraahdaan wadanada kibray wadan kamida ayaa 2 saacadood leyd baxtiyay magaalooyinka ugu waaweyn dunida magaalo kamida ayaa leyd ku damay dabeetana dadkii boob bay u dhaqaaqeen dukaamadii iyo warehouseski iyo meelihii baa lagu qaaday leydkii wuxuu baxay baa la yiraahdaa iyadoo injineerka TV-ga sita iyo tabiibka la ordayay malaynayay dadka qaanuunka iyo booliiska ba kala celinayay aqaaidi ما يعلنني إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو مشاكل كحليله مشاكلات أمضها وحو قبل أبي توحيدك مركو الصحمه أي النبي ولما وحو كلاك هذه مشكلة دي ومدى هيستي مثلا نبي الله موسى ومدى الحرية وكهضل رب إسرائيل بحرية نبي الله شعيب
قضية الاقتصاد بدأ بكهدلي نبي الله لوط قضية دي حماه السبينيين بدأ بكهدلي أخلاقها أنبياء نبتي ويكهذا الشيء لكن وحكه الريول لقى هدلي محي توحيد كي إيمانك إن لبسه إيمانك مركو بسمي مركا waxay noqotay sida ugu fudud inay bulshada wax looga bedeli karo ama dawladii cilmiga lahayd ee lacagta lahayd ee booliskii qaanuunka haysatay ee xoog tijaabisay khamriga way joojin kari weeyay booliskooda ninkii haystaa wuxuu qoray maqaal uu kaga waramayo khamriga ma cilmi cusub baa laga helo ma waxba soo kordhay ma yabuuleeyay waa fashilka uu bay tilmaamaysaa mamnuucistu inay fashil noqotay haddana waxay leenahay يوروب يا نورث أمريكا خبرة واي ممنوعين واي إسكاسي دايين واختيادا بدن بالإسكعبة لكن دروجة اللي يدوا ممنوعة حد ترند كي أبى الصعدات دروجة اللي لو تاجلا إيه وأنا يفصح الدورة إمك قبل هذا قارب كود ولا فصحي تهذا فضول بالله فصحي تالس كده ويا بالله فصحي تبرايفت كله استعمال يقف وجورجي سكوسة بيسنا يا بالله فصحي wadannada qaarkood step by step way soo socotaa waqti dhow baad arki doontaa iyadoo mariwaanada iyo wuxuu dhameeyay fasaxiin la oran doono inta ka badan ma cabi kartid iyo intaas aad cabi kartaado way xal loo ma hayo binaadamka qasabban wax ugu marsinaya iyadoo ma socoto qasabban wax ugu marsinaya ma socoto hadaba waxaan leenahay mashaakilka binaadamka waa lagu xalilaa waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan labada casri ba kala noocaha oo labada casri keebay aqoontu badantay keeba dhaqaaluhu badan yahay keeba jaamacaadku badan yahay keeba iclaamku badan yahay keeba mentalka maskaxda bini'aadamka in manipulation lagu sameeyo ra'yul caam in la kawino imka ra'yul caamku waa wax la sameeyo keebu fudud yahay waxay ahayd in la yiraahdo casrigan baa waxa soo dhamay fududaayeen casriga hore waxa soo dhamay adkaayeen لكن تصالح يرصد هذا كوبنات المام عصرك كان واحد شنو وضع كمرين كدد مدوبة دقن ننك عادي ضد قرايا قارقود يكون المام بقول مليون كل الدوا أفريقيا مدوبة ولا رأي سيدا حولها الله رأي ضدك الله رأي أنت وجوب بدر المسلم هاي أنت الله رأي هي قلبك اللي جاي سيلده waaweyn dunida ku kala iibsadeen intoodii ugu badnayd ilaa sida harag loo rari jiray dhaxda ku sii waqti jiray kuwa xoogan uma xagga sare ka daadagi jiray kuwa xagga ka daadaga wala tumay waladan maanta xuquuqul insaanka inoo sheegatay waxa kale xad bay gaarsiisay ninka madow qoraalku dambi maxkamadda lagu taagay waxba uu qoraa hadii la yiraahdo maxkamadda la taagi jiray qof bin aadam wala leeyahay waxbuu qoraa dambi ku ah waa muslimiinta si loo ilowsiiyo waxay aqoon lahaayeen oo dhan waxbuu qoraa hebel dambi bay ahay dadka wala gumaaday qaarkood 1905 baan filayaa inay ahayd maxaa la yiraahdaa New York museum-ka ku yaala dadka Kongo ka qaadeen Kongo waxa degan dadka big miska qayb ka mid ah dadkan gaagaabanaya gobolada qabaa'ila baa degan inta qaar halka ka qaadeen bay yiraahdeen waa qofkii daayeerka ka yimid aan waliba soo gaadhin museumka lagu daawanayo qof bini aadam meel ku jira oo yaro gaaban oo la leeyahay waa daayeer soo koraya buu haayo hadda si soo bedelay waxay doonaan ma sheegi jireen anyhow dadkii sida loo galay ee la tumay akhiran waxa la yiri xorbaati laakiin noloshay ka baxeen noloshii gebigeedba waa laga saaray iyana markii dambe waxay noqdeen mujrimiinta dunida ugu ijraan badan gangis dad wax dila oo khamri cabba oo wax booba oo problem una hal xoreeyo laakiin waxay noloshii kale bay baabi'iyeen dabeetana dawladda Mareykan jeelal baa laga buuxiyay lagu guray jeelkii waxba bedeli waa markuu soo baxaabo shaqada halkii ka bilaabaya jeelasha laftoodii baa meel amniyo dadku ku noolaada noqon waaye oo la isku dilaya oo la isku kufsanaya wax kasta la sameeyaa dabeetana dawladdu waxay isku dayday dadka markii dambe problemkoodii markay u taag weyday inay salaaxiso
war dadkan aan dadka ka dhigna baa la yidhi projects bay dowladdu bixisay jaamacadaa la siiyey diimaha la siiyey cid walba waa lagu dayay jaamacada ayaa waxa la yidhi waxaa cilmi baadhis ku samaysaa dadkan nidaamkooda ijtimaaciga sociologigooda psychologigooda kan daraasaha lagu sameeyo dadka kan bini aadamka lagu soo daro mashaariic badan baa lagu qaatay sakan ha la siiyo dhul ha loo dhiso iskuul ha loo furo waxbarasho ha loo sameeyo jeelasha rehabilitation dib ha loogu sameeyo wax allaaliya wixii la tijaabiyo dhammaan way fashileen way shaqayn waayeen gaangiskii qaar ka mid baaba islaamay gaangiskii qaar ka mid ayaa islaamay dabeetana islaamnimadii bay kula noqdeen xabsigii gaangiskii weynaa bay wax ka bedeleen waxaa soo baxay dadkii ugu khatarsanaa oo ugu musaalimsan niman weysaysanayoo iska tukanayo cidna dhibaata waa kuwii duriduba qaaqda ka taagay ayaa markay weysada barteen balaayadaba ka baxay tawxiidkaa bedelay nimankaa taariikh badan bay leeyihiin oo baabkaa ku saabsan laakiin in kooban aan idiin tilmaamo nin baa jira soomaaliyeed oo jaamacadka maraykanka ka baxay waa PhD holder researcher buu jaamacad ka ahaa qaybta beeraha iyo waxaasuu ka ahaa jaridada weyn ee maraykankan filaya ee cilmiga beeraha editorska toddobada ee buu ka mid ahaa baan rajaynayaa dabeetana maalintiisa sabtida iyo axadda ayuu jeel u dhow iska wacdiyi jiray jeel jaamacadda u dhow meeshaa jeelka waxaa ku jira juvenile maraykanku markuu dadkan madow loo taag waayey maca kuwa yaryar baa la xidhaa jeelal baa jira juvenileka lagu xidho 15 jir 16 jiro kuwa aan 18 gaadhin ee qaanuunku qabanaynin jeelal gaar oo lagu xidhaa jira jeelku waa soo tagay uu iska wacdi badh baa islaamay kuwii raay islaamay baa noqday dad fiican qoladii jeelku waxay yidhaahdeen war ninkani dadkan waxbuu ka bedelay bal war wacdiga noo badi bay leeyihiin kaalayo meesha si fiican wacdi ninkan researcherka PhD holderka Soomaaliyeed waa Soomaaliya markii dambe state-ka New York baa waxay yidhaahdeen ninka kani waxbuu ka bedeli karayaa noloshan jeelasha iyo gaangiska kan marka waxa loo soo bandhigay shaqo ah shaqada jaamacadda inuu ka tago state-ka inuu u shaqeeyo waa cid jeel inuu noqdo lacagtaana lacag ka fiican ma u dhigantay in la siinayo ninkii Soomaaliyeed uu joojiyay shaqadii jaamacadda hadda 20 sano u dambeeyay ma filaya oo 9 baa la kulmay bari dhaweydna argaysan ku kulannay 20 sanadood buu hadda ka yahay baan filayaa waa cid jeel u yahay waxa loo qaatay isbedelku ka sameeyay maxay xabsiga dadka ku jira idan waxaan leenahay nolosha maanta joogta ee dawladda Mareykan cilmigeedii aqoonteedii lacagteedii intay ku bixisay ay u taag weyday ee nooc kasta ay u adeegsato bini aadam loo adeegsan karo oo isbedel ka sameyn kari weyday ayaa waxa isbedel ka sameeyay maxay nin la ilaaha illa allah sheegayo xataa aanu takhasuskiisa ahayn takhasuskiisu cilmiga beeraha laakiin tawxiid sheegaya oo la ilaaha illa allah dadka u sheegaya oo diin baraya ayaa isbedel ka sameeyay gaangis aan jaamacadba soo galin meelahan waa akhridaan baan filayaa Malcolm X la odhan jiray Malcolm X muxuu ahaa waa gaangiskii waaweynaa ka mid ah isbedelka intuu sameeyay ummaddan wax ka bedelay bal kacdoonadu sameeyay daraadeed loo dilay waxay leenahay marka haddaad rabto inaad inxiraaf gunta ka Soomaalidu waxay yiraahdaan milil dushii lama dhayo haddaad milalka nabarka xagga sare oo buqbuqa yar haddaad dhaydhaydo intuu yara bogsada u bahdana hadhow maxay dib soo dilaacaya waa inaad meesha gunta ka soo nadiifisaa isbedelka islaamku uu rabaa waa maxay waa inuu nolosha gunta ka nadiifiyo haddii gunta laga soo nadiifiyo waxa kaloo dhanna isbedelka waa lagu samayn karaya isbedelka lagu sameynayna isbedel fudud buu ahaanaya sida daraadeed ba quraanku wuxuu inoo tilmaamaya waxa laaliya taariikhda bini aadamka inxiraafaadkii soo dhacay in la lahaa kow laga bilaabay ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr hatta caruur baynu u taaglaanay Soomaaliya quraanku wuxuu tilmaamaya nin la yiraahdo Luqman al-Hakim ilaahay wuxuu quraanku ku sheegay ninka xikmad la siiyay حكيم ينوها
ninka xikmadda la siiyey quraanku xikmadiisii oo dhan wuxuu inooga soo naqliyay ilma uu dhalay sidoo ula dhaqmay ilma uu dhalay sidoo ula dhaqmay ilmaha uu dhalay markuu wuxuu sheegayay xaguu uga bilaabo وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وحوق بلابا يا بني ورويل يرهيو لا تشرك بالله قضية التوحيد إلهي هو الشريك يالي مركاسو وحو السببي سببت أن لو شريك يالي وحيتي إن الشرك لظلم عظيم عدالة لقاله إلهي الله عدالة سمايا وفيعا قد حقي سوق افتضي ظلم اللي قالنا إلهي الظلم ذا وفالح وأين ذو شريك ياش إلهك وأبوريك وأرزاقك كون كان له إن ترى ضعت كلا لا عابدية ولو نفط هذا أنا هالنقطة هو ذا أنا هالنقطة سدرات ذا يهالحبة وحين لنا لا إله إلا الله مهمة دا إلهي وحويا دتك نوح الغياب بين وفهم سيين آخرة إنه وحتر كطي ها نبويا تاس آخرة وحتر بيكت لكن وحكى الله إنه وحي وحتر كطي دنيا نيجوجنا دنيا نيجوجنا وحتر كطي وحنا لنا وحي وحتر كطي وينوب هالنهاي أقويها كين وحدونا تخصص كاجا علمي هذا أقويها كوين فهمه meesha problemku asalka waa laga bilaabay inay halkan tahay waxa kale aad samayso dhami waa dabdamis yani mashaakilku iska tira baday malihin mashaakilka ayaan laga hadlin ama ayaan wax laga qabanin laakiin waxaad rumaysantay mashaakilka kale aad qabanayso dhami waa dabdamis balorta dabkan si baqti kana si baqti laakiin wayna gunta ka tosha Soomaaliya waxay tiraahdaa haani gumbe ka tolanta أنت قلت يرى هو صابر كورا لا طلا كدي بكر لا صعدا يساتن لا طلا إنسانكم قلبي جيسي عقلي يسوى حق لو كطلبه هرمك بني آدمك وح عقلي بني آدمك قالوا كبل عمه اسبدل كستوب بني آدمك كودعه يسوى كبل عمه دبدك كمان بل عمه اسبدل كستوب بني آدم كودعه يسوى كبل عمه waxay leenahay isbedel bini aadam lagu sameeyana waxa ugu weyn isbedelka uu soo diray ilaaha og bashar kare isagoo abuuray ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ilaahay ma wuxuu rabaa nolosha adduun intaynu ku kadeedana inaynu aakhira jannada galno maya diintani waxay u soo degtay noloshan aynu joogno inay islaaxiso tadamana inay islaaxiso adduunka inaynu liibaano aakhirana inaynu liibaano توحيدك وحتركو إن النفط هذا مطمئن نقطه ألا بذكر الله تطمئن القلوب يريد ما أنت يكون والله عفلا يا ودنا ذكر كود حبضوا أنت يدشوا حكبدا أنت يوست له ودنا بدن دجال هذا ضدك كجد انتورنا وحكبدا أنت يسكدشه inta istishaa markay tira badatay dunida wadanada waaweyn qaar badan oo kamid ah laguma qoro jaraa'idka page-ka dambe ee tacsida jaraa'idada reer galbeedku inta badan page-ka dambe oo dhan oo page tira badan baa waxa ku qoran tacsida dadka dhintay oo la tacsiyeynayo kuwaas waa mamnuuc laguma daro waayo waa problem la rabo in la aaso oo aan la rabin dadku inuu ogaado yaa isdila dan yartu isbedisho طبقات الصراع وجوبا هي ميدل كلاسك تدك استيلاء رجال كوحة وجوبا تدك هنتيدنا لا لعكتنا له ميدل كلاسك هي إنجنير رضا الطباء السياسيين تدك ووي تدك كوا صاوي ترى بدل تدك كادحين تهيا وشيلك الرادينية شيل الرادس كابا نفتك كابا حدا مركا أنت بدل يجو بروبلم كايستيل كمسوا قاعدة تدك وجوبا استيلاء وتدك إنه نشيم وحكو هيستي حلنا الله ما هيو ما هو ملاذ الدولة قاركود إن مركي مشكلة حل وايه يا برلمان كود الشرعي تبتنا وحيد هذا سي حل الله وهلا بلا نوجان الدراسة هلا قسم يضطكم عيش الدلاه سي الدراسة الله قسم يو إلا قف يقول جسم بيسكو عيشنا يا لوجان ما يو دولة ده حسب يسمى اللي يسكو دلو ده بتنا ضدكم مركي يمادان انترفيو هلا قاعد
oo foomam ha laga buuxiyo qofka maxaad isu dilaysaa maxaad u dhimanaysaa waa ka kadibna ha lagu caawiyo sida u fudud ee la isu dilo taasoo qaab baa la isu dili karaa dad ka marto waa dhimanaysaa waa dawladaha waa dawlad ka mid ah way u samaysay si cilmi baadhis loo sameeyo ayaa dawladdu meesha tan u furtay dadka isdilaya meesha yimaada sababtu isu dilaya wixii baa laga qoraya problemku dareemayo waa kan iyo wuxuu xal u arko waa la isku dayaa haddii la qancin kara in la qanciyo laakiin waddankiiba kuyubu meeshii u galay dawladdii dabeetana amar bay soo saartay war la xidho dadkan wixii dhimanaya iska dhintaan yacni mushkiladaan xal loo haymaysan idan dunida maanta mushkilaad baa jira أن تيفيكو كهذل أو جرائدكو كهذل أو وحري كهذل أو مشاكل حقيقية بالشدة الدون كهيستا أو علم بارسية دي اللي سبي حل إلهي واحد هذا العالم الإسلامي بقى وغير دتك يستلم مع مشاكل في صورة مع كل المشاكل كثيرة قفوا ينسقوا نفط إسكاك هذا وضدك وترى ضير رح لنا هي توحيدك يا إيمان نرشن نبتدي حل وياي nolosha dhibteedoo dhan buu xal u yahay waxaan leenahay waa fure u baahan hadduu rogmo ardiyada kale markaa way fududay dadka in socially politically economically waxaa doonta sheeg isbedel kastoo kaloo lagu sameeyaa si fudud baad markaa ugu samayn karaysaa si fudud ayaad u samayn karaysaa hadduu se asalkaasi dunsan yahay waa wax tiro badan leh marka darsigayga caawa wuxuu ku saabsan yahay war adduunkan kadeedkiisa nabiyullaahi yuunus markuu godka markuu bahalku liqay ee badda hoosteeda galay muxuu ku dhawaaqay fanaadaa fi dhulumaati an laa ilaaha illaa anta subxaanak inni kuntu min adaalimiin ilaahay muxuu yidhi markaa fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algami wakadalika nunji lmu'miniin baa ilaahay yidhi waa ka aqbalnay baa ilaahay yidhi baryadiisii laa ilaaha illaa anta subxaanaka inni kuntu min adaalimiin ahayd waxaana ilaahay leeyahay wakadalika nunji lmu'miniin saasaan u badbaadinaa dadka mu'miniinta bale nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahy war hadday dhibtu idinku badato adkaato ducada saxiixaynka ku soo aroortay buu nebigu leeyahy akhriya ah maxay laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu lcarshi alkariim war ducada akhrista buu nebigu leeyahy قضية التوحيد يعني مشاكل كستوينة هستوى حل ينقول علينا يا إنه محي توحيد كدرنا وفي مركو التوحيد سدو وحما ممنوع نقضى محي بيجيس يا مال كيس يا محي هي شرفتي دي سبا إنك استو صومالي ده يا غار بدر مسلم كمان تكمدي سقول لا إله إلا الله لا داعي سقول سجود يا كوكا قصيا أنا لا هدو قف التوحيد سدو وحما ممنوع نقضى محي إذن أيها الأحبة فاهمت القرآن يا حديث بيضا بدن بيكوت الله أنا وحان ربعة وين ردين شيء وكلمة أقولها وحويا وحي بروبلم تاريخي القرآن كوينو قور ربي دريد الصوم مري إلهي وحيري وحا كبل ودان أنبياء دي الله صدري هلكا كبل هذا دبتر مشاكل كواسحة كريسة وحن لنا مركا إنقنا مشاكل كينا ينحستا وحضورها كصاف سنادو مشاكل كينا ينحستا مشاكل بدن باينا هستا مد قبيلة ينا هستا مد نقالة ينا هستا مد سياسات باينا هستا مد بلشيات باينا هستا مشاكل تربضن أيها ينا هستا ولما أنت الدراسة دي علم بارس إيو أقونوا باهن لكن وحين لنا يسبدل كأنه كربنا وإنه بيس هذا توحيد كيدت كإن دين تلو سعلي سوى قد وحين لنا ضد كربينا وحصلاحية أقونيها هذا سياسيين هذا عدة دوران هذا ورهلك كبل هذا وحفظ ضانية قول كينين هو قاعدة وحنا حتى هدو تشرو إفتول هدي تشرتو ودو ينبضنا وحلو الصحة تنوى وددا وقابا بالله هدا بيتشرتو حتى ودو ينبضن ومشاكلات كثيرة وحلقة الصحة كرو انتو الدورة هلك هذه تنوى وددا وقابا وايو ووددي كنتي dadkii dunida ugu aqoon yaraa meeshii ugu abaarsanay deganaa ugu dhib badnaa inta dawlad aan lahayn taariikh dawladeednimo aan lahayn taariikh falsafi iyo cilmi aan lahayn saxaaraha carbeed ku noolaa inta la bedelo
inay waqti aan 50 sano gaadhaynin xadaarada ugu weyn dunida ay ka dhisaan saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dabeetana alxadaara alislaamiya la sheegaa waa bayska u rasmiga ay ku dhisnayd wax kastoo ay soo saarto dambe 1000 sanadood bay dawla luula dunida ka ahaayeen laakiin 1000 sanadood waxa la wado dhami baysku ku dhismay ee xadaarada tan dhisay waa tay saxaabadu u dhigeen hadday bini'aadamnimatay hadday dhaqantay hadday diintay hadday akhlaaqtay hadday xataa qaab loo dagaalamatay dagaal akhlaaq ku salaysan bay keeneen xataa idan waxaan leenahay Soomaali maanta xornimo waxay sheeganaysaa maxay de 70 sano malaa waxa ka dhima wax yar saxanka ma 70 sanadood 70 sanadood kadib nabi maxamed dunida muslimku halkay maraysa inana 70 sanadood intaynu wadnay ayaynu nidhi koowaad dimuqraadiyadda tijaabinayna walaasaynu nidhi wartan waa lagu goblamay waxba lagu mahayo waayo 1968 69 foodkii ugu dambeeyay waxay yiraahdaan Soomaalidu 82 xisbi bay ku gashay doorashada reer walba xisbi yar oo hoos u lahaa haddana 82 markay xamar isugu tageen 122 hal xisbi ku beeraan nin qoray mucaarad lahaayeen cabdirasaaq qura mucaarad ah inta kalena SYL bay ku gashay waa lagu soo baxayay mabaadii ma jirin markii dambana waxa la yidhi xisbiga dawladda lacagta haya xagga la wada gala waa la soo wada waxa la yidhi kaasi socon waa inqilaab baa dhacay shuuciyad baynu qaadanay muddo la waday waxaynu dhintaynaynaa ficweydi oo maxayna anfacaya jabhado waa jabhadayni wixii horeba waa burburin waxba wala dhisay oo maxayna anfacaya reero wada suldaan baynu sameeyno reer baynu dabada gelinay maca aqoonyahanku reer buu dabada geliyay qabiil baynu ku wadnay waxa laan ka yeedhay wadanka dhan baynu sameeynay waxba inaan fiici waaye waxba ma hayno yani qabaa'il tijaabinay oo dimuqraadiyad tijaabinay oo shuuciyad tijaabinay oo jabhadnimo tijaabinay oo dhulgoosinimo tijaabinay oo gobol yar yar eegnay waxba isbedel ma jiro idan waxaan leenahay war wali gawaan baynu qodaynaa gawaan baynu wali qodaynaa haddaynu rabno inaynu isbedel dhaba samayno 70 sanadood dunida baynu qayb qaban lahayn maaha xoog baynu ku qaban lahayn aqoon baynu ku qaban lahayn dunida isbedel ka samayn karnaa 70 years waa waqti dad ay xad gaadhaan 70 years waa waqti saddex jiil ugu yaraan ay isbedeli karaan laakiin maxaa inaga qura maaha عالم الإسلامي سيدي لو جميستي عقلي جميستي أول شقينية عقلي جميستي عالم الإسلامي شوغا مرة حق الشيوعية دبوا عرّي مرة حق الديمقراطية دبوا عرّي مرة حق خير ما دبوا كسر نقني أنت أهل من الإسلام ولا بودي ولنا أي وضع تتكبر بقى وحي ورانا يعني عدو قاينا هلا عدو قاينا ولي قد الدنيا عدو شوغ كور رادات هذا كبد بان عيارنا oo tiimamka baan rabnaa inuu la baratano oo laga soo badiyo maalin walba tiraado tiimamkaas xarfaane marnoo baneeya anaguna goolasha dhalinay aqliga cadawga ka warramo asaasoo kale teemashu waa lucba dunidu ay ciyaaraysan waliba maslaxadiisu wati ma adigu waxaad sugaysaa inta lagu baneeyo inaad goolka soo dhaliso that's nonsense weeyaan waa waxaan jirin tiimkaaga intaad dhisato waa inaad isku daydaa maxay inaad goolkana ka dhalin karto adna aan laga dhalanin that's aqliga rasmiga waa ka in hada adigu difaacaga xoojiso aan ku marin cadawga hujumkaaga aad xoojiso adigu aad gool dhaliso laakiin qolada kale maxay u xoog badnaatay war ma hadda war ma idan cadawga ina haysta iyo gaala ina ku tira badatay waa la isugu keenyay waxaas war ma waxaas war ma carruurta iyo dumarka lagu sheekeeyaa waxaas war ma warka dhabtahay waxa weeyaan haddaynu inagu isbedel rabnana dunidu weligeed bay loolanka ku jiray halkaynu joogno ka hooseeya ayaa dunidu soo martay ka hooseeya soo martay laakiin rag baa u halgamo ka soo saaray groupkiina caawa hor fadhiya deenin cirale laba qof baan arkaa baan u malaynayaa intiina kale madaxiin waa madow idan idinka dadkii isbedelkana abuuri lahaa samayn lahaa laakiin waxaan leenahay yoolku yooyda ka qaldamay dhalinyaradu inta badan gabgabta ku badan iyagana oo markaad afar buug akhridaba dhanbaad u carartaa gabgabta inta daysaan dunidu taariikh bay leedahay taariikhda daraaseeya oo meeshii ilaahay iyo rasuulkiisu wax ka saxeen meel ka fiican soo heli maysidee go that way
waxbaynu saxi karaynaa وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله